wiilba wuxuu yiri war hooyaday waan ku rafaaday intuu qaaday yaa wuxuu geeyay guryahan dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo dawladda ay wax ku siiso maalin dambe maamaysay meesha ugu cadaabnayd yaa fariin soo fartay waxay tiri wiilkayga hal igu soo yeero wiilkii baa loo soo yeeray ruux weyn wadkii uu yaqaanaa baa maamada waxay ogaatay eegayna adduunyo u kala dhamaatay waxay tiri hooyay dhageyso ana adduunyo way noo kala dhamaatay sida ii muuqato laakiin waxaan ku dardaarmay bay tiri gurigan aan deganahay laba shay baa looga baahan yahay tiri inaad ku soo xirtaan ka rabaa gurigan wuxuu u baahan yahay tiri horta gogol iyo furaash waa u baahan yahay waxaa kaloon ooga baahanahay tiri muraaxadan bahashan qaboojisada ana iigu soo xir bay tiri aad u dhageyso qisada bahashan faankan ii soo xir furaashna ii keen wuxuu yidhi 7 sanaad meeshaa ku cadaabnayd imaadan weydiisanin faankan inaan kuu xiro furaashna aan kuu keeno maantood ilgeeriyaad leedahay maxaad ii weydiisanaysaa waxay tiri ani waan socdaaye oo ma baahni berri aduun baa lagu keeni adaan kaasi naxya kolba ilmahaada caasinimada waa dayn lagugu leeyahay intaad igu samaysay ilmahaada kugu samayn si aadan berri meeshan ugu gubanin anaa ku gubtee dhagaxana aan kuu qabanin firaash la'aan hadda sii diyaarso hadda waa lagu keeni boos kale waa dayn wallahi waa lagaa goyn waalidka intaad ku samaysay wallahi waa lagaa goyn wallahi magac ilaahay baan ku dhaartay waalidkaada intaad ku samaysay waa lagugu samayn